Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Islaam dhamaan walaalay Soomaaliyeed meel kasta joogtaan oo markale walaashin xabsa shire kusoo dhawaada channelkayga oo maanta waxaa idin wadaa buskud yar oo fudud oo ciida ugu talagalay oo ukun la-aan ukunta anaga xasaasiyada ciyaalkayga wada qabaan soo marka buskud ukun la-aan iska samaystay halka baaqoligaas waxaa ku shuba hal koob oo saliid suuqa ku bedeli kartaa hadaa rabtid iyo hal koob oo sokor budo sokoraa soo shiiday kabacdi waxaan ku daray nus koob caano si fiican isku walaaqaysaa sokorta maadaama liisho ay tahay qasitaankeeda ma ku dhibaysabo kabacdi qaando haafkeeda vanilla carfisada iyo qaando haafkeeda bakin maxaa la si fiican isku dhex gelinay kabacdi waxaa ku darayaa 4 koob oo bur laakiin burka marka ku dareysid hal mar ha ku darin oo kiskis leh ugu dar si yani qiyaasta ay ku yani hadhow qaleel oo kaana qanin ama bajaq oo kaana qan tartiib sidii yaa loo qasayo markin oo ceesh ama jabaati si loo qasaa ama loo qasay waxaa la rabaa dooga inuu jileec ahaado jileec zaaidna ma la rabo inuu adeeg ahaado qaleel noqdana ma la rabo marka tartiib burka ugu darayaa si fiican liisho inuu noqdo la rabo markaas dhex gelinaysid hada baashaas ku qasaa xoogaa burka ku adkaado ma had kadib waa ka bixinaa gacanta ku rifaaqanaya waxaa la baahanyaa si fiican gacanta isku dhex gelisid actually ani hada buskudkan sameynay just goos iskaga duubtay ugu talagelin YouTube ina soo geliyo laakiin walaalahay asxaabteeda qaar kamid ah ay soo codsadeen oo waxay dhaheen buskudka baan soo gelisid saas darteeda codsigaas dartiisa hada maadaama mar labaad aan duubi karin oo aan buskudkayga already aan sameystay aan u soo gelin way hada marka si fiican isku dhex gelinaysaa ujeedin hada waa ka saa diyaar oo noqday dooliishe oo nadiif oo jileec ka soo baxay kabacdi waxaan ku calaameysanayaa buskudka sharaxaad uga dhiganayaa bahalkaas bakaara ka soo gaday buskudka midka lagu naqshadeeyo noocyo badan ay leeyihiin kana hadda ani midka iigu fudud oo gabar saaxiibtay ii recommend gareysay oo qurux badan yahay naqshadiisa 6 naqshado leeyahay ma fahantay soo marka waa kuuskuus yar oo isla wada eg kabacdi waa lagu istaambeynaa ma fahantay istaamba camal geedka caagisa loo dhex gelinaa wuxuu leeyahay geed moolo oo haas oo kala soo riixays kabacdi hadhow sii deene marka naqshadii ku soo baxaysa markaas dhex dhigtay mar walba naqshadu waa bedeli kartaa marka saf hadaa gelis camal 4 xabo isku naqshada ka dhigay hadana 4 kala naqshad kale hadasa midda jeceshaa ka wada dhigi kartaa hadaa hal naqshad oo keesha ka wada dhigi kartaa so it depends kabacdi geedka soo ugu dul qaade naqshado qurux badan kaaliska arag buskud gaagaab oo qurux badan ka soo baxay walaal ma sha Allah buskud qayb kale oo kamid waxaa isdhaha timir dhexda ka geli soo kusoo baxa arag asigana qurux ma sha Allah macaan oo kusoo baxay marka buskudka asmeys ma ka dareemaysa laakiin marka kala jibisid timirta dhexda kusoo baxayso waxaa kale oo ka fikiraa xataa xalwa xataa ina dhexda ka geliyo ani waxaa jeclaa buskudka xalwa inaa ku qabsado soo marka waxaas dhahdaa xalwada dhexda la geliyo soo naqaasna mar dambaa baroobeen doonaa insha Allah idin wadaaga qaabka uu soo baxo haddana waa kaasaa buskudka foornada waxaan geliyay 15 daqiiqo aad 20 ilaa 15 daqiiqo inta u dhaxayso guduudkaas quruxdaas oo ku soo baxay 220 degree waa u geeyay ma fahanteen soo marka ina ilaaliso kaaga baahan mar walba qofka foornada isticmaalay ku xiranta aan foorno koronto isticmaalay hada gaas isticmaalaysid foornada qaabkeeda hada foornada hore u kulleed waxa dhan way kala duwan yihiin marka foornada mar walba horta ina kulleysida u baahan tahay maxaa la hay ka bacdina aad gelisid gudguduud qurqurux badan oo naqday inuu ka gubtan mal rabo inuu zaaid cadaan u ahaado mal rabo marka isku diyaarinta ciid way socotaa wali soo dhawaada ka faa'iideyso aan buskudkaas qurux badan ka soo baxay soo tijaabiya qofkii baraaweena commentiga ay ugu wada u naqday insha Allah birin iyo maarif waa insha Allah ka faa'iideysana hala wada soo ma hala duceysto inta awoodi karto dadka xajka jirana Allah ka aqbalo anagana Allah noo kaso jazaakumullahu khayr.